kulleytay waxa weeyaan aynu ku nimidnay buurtii Sow maanta oo ah maalinta waxa weeyaan 29 bisha Shabcaan oo beritoole ama caawa aynu rajeynayno insha Allah bishii barakeysan ee Ramadaan. maanta waa maalin Jimcaha isla markaana waa maalin aan socodka la soo gabagabeyn doono insha Allah maadaama ay bishii Ramadaan soo galayso. jimicsigu waxa weeyaan farxad, jimicsigu anti stress, jimicsigu wax walba weey qofkii raba inuu nolol fiican oo raaxo ku noolaado jimicsiga. Assalaamu calaykum. الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي maanta waa maalin Jimcaha isla markaana waa maalin aan socodka la soo gabagabeyn doono insha Allah maadaama ay bishii Ramadaan soo galayso. bisha Ramadaan ayaan soo dhaweynaynaa. waxaan dadka markaas leenahay socodku waa caafimaad, waa interest, waxa loo baahan yahay in markaas la joogteeyo waqtiga baa markaas aad qaadan kartaa adigoo waqti qaadan kara isla markaana jimicsigiina markaas fulinaya hawlaha ay kala qabsanaya wuxuu ku fududeynaya waxyaabo badan wuxuu ku fududeynaya cibaadada, wuxuu ku fududeynaya caafimaadkaaga markaas oo joogteynayso Ramadaan maadaama ay soo galayso waa bil cibaado taraawix badan baa markaas la tukan doona insha Allah Allah ka cabsi badan baa la soo quraan akhris badan baa la sameyn doona waxaas badan markaas wuxuu ku fududeynaya adkeysiga inuu jimicsigu adkeysi ku sameyn doono dhammaan waxaan asxaabta socdaalka faraya ama aan macna kuwa u soo jeedinaya talahaan u soo jeedinaya in ay joogteeyaan oo waqti yar oo kaaban oo 2 saacadood inta markaas u dhaxaysan maqribka maalinta Jimcaha ay kaga faa'iideystaan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. alxamdulilah waxa weeyaan horta aynu waxa weeyaan ilaahay ugu mahadcelinayna caafimaad qabka maanta kulleytay waxa weeyaan aynu ku nimidnay buurtii Sow maanta oo ah maalinta waxa weeyaan 29 bisha Shabcaan oo beritoole ama caawa aynu rajeynayno insha Allah bishii barakeysan ee Ramadaan. hadduu alla idmo kulleytay waxa weeyaan sida qorshuhu yahay insha Allah kulleytay socodka joojin maayo waxa weeyaan socodku inuu wadi laakiin meelaha dhaadheeraay la tagay iyo waxba kulleytay galay laakiin insha Allah meelaha dhow insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan hawsha sii wadno bisha barakeysan kulleytay waxa weeyaan 4 usbuuc kulleytay maalmeen ka bixin kulleytay sida caadada ay maanta Jimcaha insha Allah waxaan rajeynayaa inaan hadduu alla idmo sii wado hadduu alla idmo bismillah. maanta waa jimcihii ugu dambeeyay bisha barakeysan ee Shabcaan. Ilaahay noo barakeeyo. bisha Ramadaanna waa soo dhaweynaynaa. Ramadaan mubaarak insha Allah ta'ala kullu caam wa antum bikhair. caafimaadku ku soo dhaweyno. ilaahay qof walbana ha u suurta geliyo inuu cibaadeysto hana inaga aqbal cibaada. jimca mubaarak, Ramadaan kariim.